الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما. وسورة البقرة آيات لبيه كنت لبيه لحدا بين كبلاب إن شاء الله. آيات دعوه الرئيسة كوبي لحدا هدين ودي بقول نقولنا اهبطوا مصرا هي مصر باكل الدول marka hadii la yiraahdo misran oo sida munawwar uu yahay sida aynu arkayno mid tanwiinsan macnaheedu waa magaalo kamida magaalooyinka dega erayguna 5 meelood buu ku soo araray quraanka taqriiban marka imika uu waa maadaama labada xaraka leeyahay waa magaalooyinka kamida laakiin hadii fadxa kaliya uu leeyahay waa wadanka Masar udkhulu Misra in sha Allah aaminiin marka farqigaas jiro haboon inaad la socoto arinta kala jirtaa waxa weeye وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربك waxa la yiraahdaa markii soo garaaca la yiraahdaa laakiin macnayaal badan buu yeeshaa carabiga halkan waa dhismo marka eraygu waxa uu faa'iideynayaa nimankan sida dulliga iyo faqrigu ay ugu xidhan yihiin aan ay uga tagaynin ay u laasimsan yahuuda waxay ka dhigan taambuug lagu dul dhisay oo kale oo iyaguna ku hoos jiraan meeshay doonayaan ha u baxaan taambuuga faqriga iyo miskiinimadu iyo dulligu ku dul dhisan yahay waxa kaloo jira ficilka mudaarica ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna dee aayadaha ilaahay horeba way uga gaaloobeen nebiyadana way dileen wax soo socda hadda ma aha hadana ilaahay ficil mudaaric buu cabiray ama ficil mudaaric baynu ku arkaynaa aayadda ficil sheegaya wax soo socda laba arrimood buu noqonayaa xaaladii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nabi dilka ahayd sawirkeedii ilaahayna soo hordhigayo oo bashico liita iyada oo lagu sheegayo waxan inaanay wali deynba gaalnimadiina way wadaan نبي دلكينا ويوضع لأن الفعل المضارع يفيد الحدوث والتجدد أو إحيى عصبورانا يكل بأي فعل كتسنيا مركا ولي سيدي با يكفرون آياته قالوا بيانوق آياتها أنا بودن بيكوي كقالوا بين ولينا ويقتلون النبيين نبي دينا ولي سيدي با ودي ليانو دين نبي محمد با ودن بيو وي سنيين أو وي سحران أو قعنت أولادك اختيال بي وسميين انتو نبا waxyaabaha wax lagu dilay lagu isticmaalay ugu foosho xun ayay kula kaceen bigayr alhaq ba taala waxa isweydiin leh waxa bay nagu fileed way yaqtuluuna nabiyiin nabi la dilo adaa iska garhay inuu xaq daraya nabi bay nooran karna garba lagu dilay waa gardar laakiin bigayr alhaq waxay ku sheegaysaa iyaga aaminsanaa in xaq darati iyaga laftigoodan dilayaaba aaminsanaa inay xaq darrada wax la isku waafaqsan yahay mulaaxadaad jira way qaala allah ta'ala innal ladina aamanu dadki ilaahay rumeeyay rabbi walladina haadu yakwi yahuudoobay wan nasara yakid kuwa diinta nabi ciise ku abtirsada kristanka la ilaa wasaabiina yakuwan iyagu diin bahaysanin من آمن بالله عد إلهي الرميسة واليوم الآخر مالنت قيامها الرميسة مالنك الضنبئ وعمل صالحا عمل ونكسن السميسة فلهم أجرهم أبال كودي كليهن عند ربهم إله وداكتيس ولا خوف عليهم عبسي دشودا ما يهانين ولا هم يحزنون من أمرقونيا آيات النبي اللحدن إلهي وحي نوغو عدي ضد كان إلهي وأبوري inaanu kala yaxanayn
dadkuna waa dadkiisii dalkuna waa dadkiisii diintuna waa diintiisii intaasunbuu doonayaa ilahay inay ishelaan markaa dadkan isaga ka tala dadkan isaga addoomaha ee uu abuuray hadday xagga diinta ku sinmaan qolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani israa'iil ama qabiilada reer bani israa'iil quraanku ka warramayo si gaara looma eriyanayo carabna si gaara looma soo dhaweysanayo laakiin addoomuhu ilaahay waxay ku kala xigaan dee kolba sida iimaan iyo camal saalix cidal intan laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb waa iimaan iyo camalkii oo saalix bal isku wada darsamo dadkii muuminiinta hadday iimaankiisii wataan yuhuudigiina hadduu yuhuudinimadii ka baxo kii nasaarada hadduu nasraanimadii ka baxo islaamo kii saabi ahaa saabiintu ama yuhuudday ka faliidhmeen ama kiristanka ama qaaran kitaabba ku aftirsan wey intan oo dhan hadday ku soo ururaan iimaan iyo islaamnimo dee awliyada ilaahay bay ka mid yihiin awliyada ilaahayna laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun murugo adduunyada ah iyo cabsi aakhira midina ma hayso alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa dadka ilaahayna rumeeye ilaahayna ka cabsada awliyadu marka dhaqankoodu waa caynkaa wuxuu ilaahay kula dhaqmayaana waa inuu darajadaa gaadhsiiyey dadkana waxa uguba dhib badane raaxada ka qaadaa waa cabsi uu ka qabo waxa soo socda iyo warwar uu ka qabo wixii tegey waa labadaa midu ama wixii tegaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socdaanaad kalsooni ka haysaninoo cabsii kaa haysa ilaa dadka shahaadanaya mu'miniinta ay jannada galaan cabsidu maba baadaba saasuunbay u soconaysa marka halkaa rabbi wuxuu inoogu caddeeyey dadku ilaahay hortiisa way u siman yihiin qabaa'ilkooda raggooda dumarkooda culimadooda caami markaa isku wada daro hadday mu'miniin muslimiin ay yihiin ilaahay rumeeyo hoggaansan aayaddu taasay faa'iidaynaysa man aamana billaahi walyowmi alaakhir arkaantii iimaanka o dhan baa soo wada gelaya alyahuud inaa hudnaa ilayka bay ka timi dhahaan culimmadu ama kii ay ku abtirsan jireen ay ka farcameen baa yahuuda la odhan jiray inaa hudnaa ilayka dee nebi muuse yidhi hadda kuu soo noqono ilaah kuu toobadkeenay beriga hore ammaan ba ahayd oo toobadkeen ba ahayd laakiin markan dambe yahuudinimadu ceebtaasay noqotay annasaara in la yidhaahdo min aladiina qaaluu inaa nasaara iyagaa magacan la baxayoo waxay isku tilmaami jireen magaca tiibu qur-aankuna u qaaday laakiin in la yidhaahdo masiixiyiin oo loo nisbeeyo ciisa almasiix ciise bnu maryama in loo nisbeeyo magacawgaa sax maha bay leeyihin culimadu liannahum laysuu masiixiyiin dee maaha oo ciise daa cidda ku abtirsanaysa ee si saxa u rumaysani waxa weeye dadka mu'miniinta ah ee aaminsan inuu addoonkii ilaahay yahay ee aabbala-aan ilaahay maryan u hibeeyey laakiin abtirsiimadooda ah inay masiixiyiin yihiin ay ciise ku abtirsanayaan ma jirto idan magaca qur-aanku u bixiyaa loo daynaya annasaara waid waqti xus nebi maxamedow akhadnaa miihaaqahum ballantoodii baanu qaadnay reer banu israa'iil warafacnaa fowqahum dushoodana waxaanu dhignay oonu kor yeelnay aduura buurti duuru siina khuduu baanu nidhi qaata buu ilahay yidhi maa aataynaakum kitaabkan aanu idin siinay iyo diintan biquwatin dadaal ku qaada wadkuruu maa fiihi cilmiga ku suganna xusa ama ku camal fala lacallakum tattaquuna si ay ilaahay uga cabsataan subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib tawallaytum waa sii jeesateen min bacdi daalik intii ballantaa la idinka qaaday ogolaateen kadib falowlaa fadlu llaahi dheeraadka ilaahay haddaanu jirin calaykum dushiinna uu yeelay wa raxmatuhu iyo naxariistiisu lakuntum min alkhaasiriin waxaa ka mid noqon lahaydeen kuwa guuldarraystee baaba-ah ilaahay baa idin naxariisto kolkaana idin cafiyey muuqaalkii xaaladooda ay lahayd ee kuwan aabbayaashooda ay lahaayeen ayuu qur-aanku kolba qayb soo bandhigaya iyo fashilaaddii taariikhda ka raacday iyo kuwan imika joogaana inaanay tanaasulina kuwii hore raadkooda ay hayaan
waxaasee yeeleena idinku ha yeelina waxaasuu qur-aanku ku qabsado ku ceebeeyey idinku ka baydha muslimka haddaad tihiin ballan buu ilaahay ka qaaday ballankaas dee nebiyada loogu soo dhiibay oo ka qaaday kitaabkoodiina way ku qornay ballantaasi noocyo badan bay dee lahayd oo kitaabku wuxuu koobsanayo o dhan bay ahayd ballanta waxaa ku jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaadhaan inay rumeeyaan rasuulka iyo qur-aanka loo soo dhiibay nimanku niman cunsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiibaaba la duldhigayba buurtii duurusiine la odhan jiray ayuu ilaahay soo gooyey dushooday timidba dushooda ayaa buurtaa la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidaalik baa la yidhaha in badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay uu ku siiyey intii la ikraahee la qasbay kadib kitaabkan qaadoo dadaal ku qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasuu u imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raaca iyo ka kale maa aataynaakum wixii aanu idin siinay oo dee ilaahay baa bixiyey waxyigii iyo diinta waa kitaabkii hagi lahaa ee qur-aanka ilaahay uu ku soo ammaanee towraad furqaan ilaahay uu ku sifeeyey xaqiyo baadilka u kala sheegayey wax walba u caddaynayay quwa dadaal baa lay dadaal diintu dadaal bay u baahantay dadaal haddii aanay diintu helin ma hirgasho ma socoto oo dadka dadaal baa lagu gaadhsiiyaa diinta islaamka dadaalna waa lagu difaacayoo cadowgaa laga difaacaa dadaalna waa lagu xejistaayoo shaydaanka ayaa dadaal laga adkaadaa faaddiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahantay waa quwa xejisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laadaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato cadowgana aad difaaciisa quwa waaciduu lahum ma staطactum min quwa awooddana diyaarsada baa ilaahay idan markaa dee manhajkaasi wuxuu ku soconayaa bikitaabin yahdi wa sayfin yaxmi waa kitaabkaa ummadda hagaya ee dadka hanuuninaya ee halowga ka ilaalinaya iyo hubkaa ilaalinaya awoodday muslimku leeyihiin hubkoodaasaa ilaalinaya haddii kitaabkii hub loo waayo dee waata maantayna haysta adigu hubka ma samaysan kartid baa lay muslin oo mana geydin waayahay markay idhaahdeenna kitaabkana dhiga baa layidhi wa antum cusal idinkoo faramaran baa kolba dhan laydin kaxaynaya sida xoolaha kolba dhan laydin duubaya biquwa marka diintani dadaal bay u baahanta haysashadeeda iyo ku camalfalkeeda intaanu soo sheegay wadkuruu maa fiihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheega arrintu maahae waxa weeye ku camalfal ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo oo dadkii la gaadhsiiyo oo ummadda la fahamsiiyo oo la fasiro waa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la samaynaya markaasaa la tafsiiraya oo markaasaa la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxdaa waxa weeye haddii awooddaasi timaado ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi lacallakum tattaquun inaa ilaahay ka cabsataan subxaana wa tacaala jawaabtii waxay noqotay uma tawallaytum min bacdi dalik waa sii jeesateen ilaahay bay ka sii jeedsadeen oo rasuulkii bay ka sii jeedsadeen oo kitaabkii bay ka sii jeedsadeen oo dadkii bay qaybo u qaybiyeena waxay idhahdeen kaasi waa madax kaasina waa maalqabeen kuwaasina waa raciyad kitaabkiina way kala dheegeen waxay idhahdeen intan inama anfacdo intana inoo sahlan abablaynta iyo kala saarsaaridaana gaaladu aad bay u yaqaanaanoo dee waxayna leeyihiin diintiina a haysataan qaybahaasi waa idiin caadina ku dhaqantaan oo xaasaska ku mehersataan oo dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha laakiin arrimaha militariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xidhiidhka ummadaha inagu taataabanina annaguba taayadii waanu iska daynay idinkuna tiinna iska daaya marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytum min bacdi dalik kitaabkiiba halkaa iska dhiga nabaduuhu waraa'a duhuurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday usii jeedsadeen ay ilaahay iyo waxigiisii u diideen ha u diidina
falowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allah timid fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay bay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu lahay reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaan oo dee idiin qoran aladiina kuwii ictadow xadgudbay ee minkum idinka idinka mid ahaa ee fi sabt fii xurmati sabt maalinta sabtida xurmadeeda kuwii ku xadgudbay faqulnaa lahum waxaanu ku nidhi kuunuu waxaa noqotaan qiradatan daayeero khaasi'iina dullaysan oo aada u liita saasaa ilaahay wuli fajacalnaahaa waxaanu ka dhignay magaalada ah nakaalan cibro wax lagu qaatay u ahayd limaa bayna yadayhaa dadkii hor joogay markaa arkayay liman bayna yadayhaa wamaa khalfahaa iyo dadka ka dambeeya wa mawcidatan waana iyo casharna waxay u tahay lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israa'iil dee ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxbuu ku waajibinayo xil buu saarayay marka xilkii nimankaa la saaray waxaa ka mid ahaa jimcada weyneeya baa le jimcada oo maalin ciidaha idiin noqdo oo dee cibaadadaas aynu inagu samayno oo kalaa loo bandhigay way diideen kuwa kale nasaarada la yidhaahdaana way diideen sabtiday markaa codsadeenoo sabtidii baa la yidhi addaba iska ilaaliya kalluunka bahalkaa la ydhaahdo bahalkaa kalluunka la idhaahdo ha ugaadhsanina iska daaya maalinta iyada waa imtixaan maalmaha kale way qaadan karaanoo bahalkii waa xalaal maalintan unbaa la daaya 6 cishana waa cuni kartaan maalintaa keliyana iska daaya de waa ummadda qur-aanku uu ka warramay dhaqankooda maalinkii unbuu u macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay uu addoomaha tijaabinaya subxaana wa tacaala siyaabo badan oo kale nooc buu tijaabiyaa maalinkaa isagii kalluunkii unbaaba wuxuu noqday shuraca ku soo baxaya halkanse ku imanaya ila xaaraantii markay wixii kuu sallaxan tahay way ka sii imtixaan badantay imtixaankeedu uu ka sii badan yahay saasee u eegana waxay dhahan bahalkii dee u dhowyo kama samri karnee maxaynu yaallaa dee wadaadadii baa loo tegoo le balqiil eega xuun dee baadhbaadha ila qawi ma jire qawigu waa nahyigii ilaahay buu ku tegey qiil eega baa la dee qiilkii eegnaya aan qabanna laakiin iyo inaan cunin bay dhahay maalintan aan qabanno maalmaha ka dambeeyana aynu bahalkaa isticmaalno ama shabag ha u dhigaan ama godad ha u qadaan maalintii waa la qabtay bahalkii bannaanka u soo baxee lagu imtixaanayay axad iyo maalmihii ka dambeysayna waa la liqliqay oo waa la cunay macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen unbay daaqadda ka soo galeen daaqadda unbay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaasuu noqon lahaa maalmaha kaloo loo dhigto intoo maalinkaa la qabtaana waa in xaaraantii daaqadda looga soo galay waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantiibay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasida ayay ku cuneen waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala suurat lacraaf iyo aad ka akhriyaysa inay 3 qolo noqdeenoo qolo cuntay qolo diiday iyo qaar yidhi naga daaya meeshay doonayaan ha ka dhacaan ilaahay waxba noo qabsan maayo haddaan aan anagu cunin qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyey kuwii kale diidayna uu badbaadiyey kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arrintaasina waxay noqotay sidaa ilaahay u galay ummadii waktigaa joogay waxay u ahayd 10 ummadaha ka dambeeyana 10 bay u ahayd dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iideystaan oo xaaraan kuma dhiradaan oo mawcidatan lilmuttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxaa samaysay iyo dadkii sameeyey fajacalnaaha ay alqarya ama fajacalnaaha ficlada iyada ficlada ah waaqicada ah dhacdadaas waxaan ka dhigay baa ilaahay uri nakaalan ay cibraheed marka limaa oo soo noqotayna limaa bayna yadayha wamaa khalfaha maadu mararka qaarkood bay man noqotaa
man bayna yadayha waman khalfaha dadkii waktigaa joogiya kuwa kadib imanayayba daris bay u ahayd iyo dadka ilaahay ka cabsanayaan had iyo jeer markay meel wax ka dhacaan dee dadka waxay wax ku qaataan bay u noqotaa ma sidana ilaahay u galay talow maxay sameeyeen dee innagana inaga ilaaliya waa daris buu ilaahay uga jeedaa subxaana wa tacaala cuqubaadka ummadaha ku dhaca marka halkaa waxaa dadka ilaahay uga digaya subxaana wa tacaala inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda kiradatan khaasiin rasuulka waxaa la weydiiyey sala allahu calayhi wasalam daayeeradan iminka joogaa ma kuwii reer banu israa'iila la nasakhayba maya buu qolo markuu ilaahay nasakho 3 cisho wax ka badan ma sii joogaan ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaa wey marka daayeer dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayeer noqday wuu dulaysan yahay marka diin la'aanta iyo macsiyada dulligaasaa looga dhacaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وسورة البقرة آيات لبيه كنت لبيه لحدا بينك بالعاب إن شاء الله آيات دعوه الرئيساء كوبي اللحظة هدين ودي بقول نقولنا اهبطوا مصرا هي مصر باكل الدول مركا هدي الله إلى هذا مصرا وصدا منور ويا هاي صدا ينار كينه بالتمويسا معناه هذا مقالة كم إذا مقالو ينكدقة erayguna 5 meelood buu ku soo araray quraanka taqriiban marka imika uu waa maadaama labada xaraka leeyahay waa magaalooyinka kamida laakiin hadii fadxa kaliya uu leeyahay waa wadanka Masar udkhulu Misra in sha Allah aaminiin marka farqigaas jiro haboon inaad la socoto arinta kala jirta waxa weeye وضربت عليهم الذلة والمسكنة ضربك وحا لا يراهدا markii soo garaaca la yiraahdo laakiin macnayaal badan buu yeeshaa carabiga halka waa dhismo marka eraygu waxa uu faa'iideynayaa nimankan sida dulliga iyo faqrigu ay ugu xidhan yihiin aan ay uga tagaynin ay u laasimsan yahuuda waxay ka dhigan taambuug lagu dul dhisay oo kale oo iyaguna ku hoos jiraan meeshay doonayaan ha u baxaan taambuuga faqriga iyo miskiinnimadu iyo dulligu ku dul dhisan yahay waxa kaloo jira ficilka mudaaric ka muuqanaya yakfuruuna wa yaqtuluuna dee aayadaha ilaahay horeba way uga gaaloobeen nebiyadana way dileen wax soo socda hadda ma aha dana ilaahay ficil mudaaric buu cabiray ama ficil mudaaric baynu ku arkaynaa aayadda ficil sheegaya wax soo socda laba arrimood buu noqonayaa xaaladii xumayda ay ku jireen ee gaalnimadii iyo nabi dilka ahayd sawirkeedii ilaahayna soo hordhigayo oo bashico liita iyo iyada oo lagu sheegayo waxan inaanay wali deynba gaalnimadiina way wadaan نبي دلكينا ويوضع لأن الفعل المضارع يفيد الحدوث والتجدد أو إحيى عصبورانا يكل بأي فعل كتسنيا مركا ولي سيدي با يكفرون آياته قالوا بيانوق آياتها نابو دنبيا كوي قالوا بين ولينا ويقتلون النبيين نبي دينا ولي سيدي با ودي ليانو دين نبي محمد با دنبيو وي سنيين أو وي سحران أو قعنت أولادك اختيال بي وسميين انتو ربا waxyaabaha wax lagu dilay lagu isticmaalay ugu foosha xun ayay kula kaceen bigayr alhaq ba taala waxa isweydiin leh waxa bay nagu fileed way yaqtuluuna nabiyiin nabi la dilo adaa iska garhay inuu xaq daraya nabi bay noolan karna garba lagu dilay waa gardar laakiin bigayr alhaq waxay ku sheegaysaa iyaga aaminsanaa in xaq darati iyaga laftigoodan dilayaaba aaminsanaa inay xaq darrada wax la isku waafaqsan yahay mulaaxadaad jira way
قال الله تعالى إن الذين آمنوا دتك إلهي رميب ربي والذين هادوا يكوي يهودوبي والنصارى يكيد كوا دين النبي عيسى كوا أبترسدا كريستيان كلا والصابئين يكوان يجو دين بهايسنين من آمن بالله عد إلهي الرميسة واليوم الآخر مالنت قيامها الرميسة مالك الضنبئ وعمل صالحا عمل ونكسنا السميسة فلهم أجرهم أبال كودي كليهين عند ربهم إله ذاكتيس ولا خوف عليهم عبسي دشودا ما يهانين ولا هم يحزنون من مرغونيا آيات النبي لحدن إلهي وحي نوغو عدي ضد كان إلهي وأبوري إنانو كلا حنين ضد كنوا ضد كيسي ضل كنوا ضد كيسي دين كنوا دين تيسي انت سبودونا يا إلهي نيسهلا marka dadkan isaga ka tala dadkan isaga adoomaha ay abuuray haday xagga diinta ku sinmaan qolo ilaahay uma kala jecla oo cunsurkan reer bani Israa'iil ama qabiilada reer bani Israa'iil quraanku ka waramayo si gaar ah looma eriyanayo arabna si gaar ah looma soo dhaweysanayo laakiin adoomuhu ilaahay waxay ku kala xigaan de kolba sida iimaan iyo amal saalix cidal inta laga helo waxa weeyaan waa saddex qayb وإيمان يعمل كيو صالح فالسكو وضا درسم وضد كي مؤمنين تهدي إيمان كي سي وطان يهودي جينا هدو يهودي النمدي كبح كي نصارى هدو نصرى النمدي كبحو إسلامه كي سابعها سابين تو أما يهودي كفل إدمان أما كريستان كا أما قارن كتابك وافطر سنوي انت نورا من هدي كو صوروران إيمانية إسلامه دي أولياء إلهي بكمدي أولياء إلهينا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مروجو الدنيا ده يعفسي آخرة مدينة ما هيس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وضدك إلهي إن الرمي إلهي إن كعب صدا أولياء مركز لقى كود وعين كاوح إلهي كل رقم ميانا وين درجة ده جالسي ضدك نوحة وجبر بدن الراحة كقاضي وعفسي وكقبا وحصاص على iyo warwar uu ka qabo wixii tagay labada mid ama wixii tagaad ee ku dhaafay baad ka murugaysanta ama waxa soo socdaanad kalsooni ka haysanino cabsi ka haysa ila dadka shahaadanaya muuminiinta ay jannada galaan cabsidu ma baadaba saasoo ba u soconaysa marka halka rabbi wuxuu inoogu cadeeyay dadku ilaahay hortiisa way u simeeyeen qabaa'ilkooda ragooda dumarkooda culimadooda caam marka isku wada daro هدي مؤمنين مسلمين أيهين إلهي رميه هجاسا آيات تاسي فايدينيس من آمن بالله واليوم الآخر أركان إيمان كورن بسوى ذا قلي اليهود إنا هدنا إليك بيكتب إلى العلماء أما كي أيكو أبتر سنشرين يكفر عمين با يهودا لورنجر إنا هدنا إليك النبي موسى إلى هذا كوسا نقولنا إلى كوس توبت كان بريء هراء أمام بهذا توبت كان به لكن مركز دم يهود إنما ضعيف تاسين نقط النصارى إن لا يداضه من الذين قالوا إنا نصارى يجا مجا عن لب حيو وحيسكت المام تشيلان مجا عتيب القرآن كنا وقاضي لكن إن لا يداضه مسيحيين الله نسبيه عيسى المسيح عيسى ابن مريم الله نسبيه مقعوا السحمة بين علماء لأنهم ليسوا مسيحيين ده معها وعيسى ده عدة كأبت السنة يسأسس صحة الرميساني وحوي ضدك مؤمنين تاه مسنين وأدون كي إلهية أبلغان إلهي مريم وهبي لكن أبترسيمه ده أين مسيحيين هنا عيسى كأبت السنة يا مجرد إذا ما قع القرآن كوب حيا لو دينا النصارى وإذ وقت حسن بمحمد أخذنا ميثاقهم بل لن تودي بأن قاد نهر بنو إسرائيل ورفعنا فوقهم دشوا ذا نوحان ودقني ونكري لنا أطور بورت دور سيناء خذوا بانوا لقاتبوا لهيل ما آتيناكم كتاب كان نودي سيناء دينتا بقوة دلال كقاضة
واذكروا ما فيه علمك كسغا نحسا أما كو عمل فلا لعلكم تتقون سيا إلهي وعب ستان سبحانه وتعالى ثم انت أكذب توليتم واسيجيستين من بعد ذلك انت بلانتا الله إذن كقادة وقلاتين كذب فلولا فضل الله ديراتك إلهي هدانو ترين عليكم دشين ويالي والرحمة هي نحريستيس لكنتم من الخاسرين وحكمت نقول الله إذن كوا قول دريستين بابا إلهي بأيدين نحريستو كل كان إذن عافية موقال كي حالة دودو أي لهاي يكون أبياشو ذا إلهايين أيو قرآن كل بقايب صوب بندقيا هي فشلاتي تاريخ ذكر راعي يكون إمك تشوغانين أنا تناسلين كوي هررات كودا هيان وحاسية لأن إذنكو هيالين وحاسو قرآن كو قبصدو كو عيبية إذنكو كبايرا مسلم كاداتين بلن بو إلهي كقاضي بلن كاس دي النبي دا لوغو صور ديبا كقاضي كتاب كودين أوي كو قرني بلن تاس النوعية بدن بيدي الله هيدو كتاب كو حقوبسنا يورن بهيد بلن تا waxaa ku jiray nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markay soo gaaraan inay rumeeyaan rasuulka iyo quraanka loo soo dhiibay ma ku niman unsur ama dad madax adag bay ahaayeen ummad madax adag bay ahaayeen markay warwareegeen awood cajiib ah la dul dhigayba buurtii doorsiina la oran jiray ayuu ilaahay soo gooyay dushooda ay timidba dushooda ayaa buurta la keenay markaasay sujuudeen iyagoo isha hoosta ka eegaya lidalik baa la yidhaha in badan sujuuddoodu way maroortaa oo dhabankiiyo dhinacay ka sujuudaan amar markaa waxa ilaahay uu ku siiyey intii la ikraaheen la qasbay kadib kitaabkan qaado dadaal ku qaada ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas uu imtixaana innaga ikhtiyaar baa layna siiyey waa laynoo dhiibay dadkii waa lagu eegayaa ka raacaya ka kale ما آتيناكم وحيانو إذ سينا ودى إلهي بحية وحيقية دين وكتاب كي هاقي لها قرآن كي إلهي وكسو أمانات توراة فرقان إلهي وكسي فيي حقية بادل كوكل الشيقي وحو لبا وعديني قوة دلال بالي دلال دينتو دلال بيو بهانت دلال أدي آني دينتو هلين ما هيرقى شو ما صعود وددك الدلال بالغو قارسيان دينت إسلام dadaalna waa lagu difaacayo cadawga laga difaaca dadaalna waa lagu xijistaayo shaydaanka ayaa dadaal laga adkaada fadiinu yaxtaaj ilaa sabrin wa sumuud marka diintu sabir bay u baahanta waa quwa xijisashadeeda waa inaad ku sabirto haddaad kaloo daciif tahay intoo lagu laadaa kitaabkana lagaa tuuraya sumuud iyo sabir inaad adkaysato عدونا أد دفاعيس قوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أودنا الديار سنة بايلاوي إذا مركا دي منهج كاسوح كسعنا بكتاب يهدي وسيف يحمي وكتاب كاو مدها جاية يدك هنورين أيه هلا وكايل علينا أيه يهم كايل علينا أيه ود مسلم كله هين هم كودا سايل علينا أيه هدي كتاب كي هو لو ويد دوات ما أنت ينهايست adugu hubka ma samaysan kartid baa lay muslim oo mana gaydin waayahay markay yiraahdeen kitaabkana dhigadaalay wa antum uzal idinkoo faramaran baa kol badan la idin kaxaynaya sida xoolaha kol badan la idin duubaya biquwa marka diintani dadaal bay u baahan haysashadeeda iyo ku amal falkeeda intaan soo sheeg wadkuru ma fihi waxa kitaabka ku sugan xusoo qura maaha oo sheeg arintu maaha waxa weey ku amal fal ku dhaqan in kitaabkii lagu dhaqmo dadkii la gaarsiiyo umada la fahamsiiyo la fasiro wa tafsiir iyo tadbiiq intoo la fahmo tacliim baa la sameeynaya markaas la tafsiiraya markaas la tadbiiqinaya la dhaqan gelinaya natiijada ka soo baxda waxa weeye hadii awooddaasi timaado ku dhaqankaasina yimaado alla ka cabsi la'allakum tattaquun إن إلهي كعبستان سبحانه وتعالى جوابتي waxay noqotay ثم توليتم من بعد ذلك واسي jeesatay
ilaahay ba ka sii jeedsadeen oo rasuulkiiba ka sii jeedsadeen oo kitaabkiiba ka sii jeedsadeen oo dadkiiba qaybo u qaybiyana waxay yiraahdeen kaas waa madax kaasina waa maal qabeen kuwaasina waa raciyad kitaabkiina way kala dheegeen waxay yiraahdeen intan inama anfacdo intana inoo sahlan ableynta iyo kala saarsaaridaana gaaladu aad bay u yaqaanaano de waxayna leeyihiin diintiina haysataan qaybahaasi waa idin caadina ku dhaqantaan oo xaasaska ku mehersataan oo dhaxalka iskaga oo arrimaha jaarka kaga hadashaan oo wacdiga oo waxyaabaha laakiin arrimaha militariga iyo siyaasadda iyo qawaaniinta wax dhaqaysa iyo xiriirka ummadaha inagu taataabanina annaguba taayadii waan iska daynay idinkuna tiina iska daayay marka saasay ahaayeenoo uma tawallaytu min bacdi dalik kitaabkiiba halkaa iska dhiga nabaduuhu waraa dhuhurihim dhabarkay ka tuureen marka macnaheedu waxa weeyaan idinkuna siday u sii jeedsadeen ay ilaahay iyo waxigiisii u diideen ha u diidina falawlaa fadlu llaahi calaykum waraxmatuhu lakuntum min alkhaasiriin naxariis allah timid fadli ilaahay iyo naxariis ilaahay bay ku joogaan khasaaraha ku dhacay mid ka weyn baa ku dhici lahaa walaqad calimtum buu lahay reer banu israa'iil oo dhabnimo waxaa ogaateen oo ka warhaysaan oo dee idiin qoran الذين كوي اعتدوا حد قدبي منكم إذن كم هاي في السبت في حرمة السبت ما أنت السبت إذا حرمة إذا كوي حد قدبي فقلنا اللهم وحن كنري كونوا وحن نقطان قردة دايرة خاسئين الدليسان وآدليت ساسي لهو فجعلناها وحن كردنا مقالة نكالا عبرو wax lagu qaatay oo ahayd lima bayna yadayha dadkii hor joogay marka arkay liman bayna yadayha wama khalfaha iyo dadka ka dambeeya wa maw'idatan wa na'i 10 waxay u tahay lil muttaqiina dadka ilaahay ka cabsanaya reer banu israa'iil ummadahan adduunyada ilaahay qolo walba waxba ku waajibinayo xil buu saaray marka xilkii nimanka la saaray waxa kamid ahaa jimcada weyneeya baa la jimcada oo maalin ciidaha idin noqdo oo de cibaadadaas aynu inagu sameeyno kala loo bandhigay way diideen kuwa kale nasaarada la yiraahdaana way diideen sabtiday marka codsadeen oo sabtidii baa la yiri adaba iska ilaaliya kalluunka baalka la yiraahdo baalka kalluunka la yiraahdo ha ugaarsanina iska daaya maalinta ayada waa imtixaan maalmaha kale way qaadan karaan oo bahalkii waa xalaal maalintan baa la idaay 6 cishana waa cuni kartaan maalinta kaliya iska daaya dawa ummadda quraanku ka waramay dhaqankooda maalinkii buu macaanaaday iyaba imtixaan kalena weeyo marka ilaahay waa doomaha tijaabinaya subhanahu wa ta'ala siyaabo badan oo kala nooc buu tijaabiyaa maalinka isagii kalluunkii u baaba wuxuu noqday shuraac ku soo baxaya halkan soo ku imanaya ila xaaraantii markay wixii ku salaxan tahay way ka sii imtixaan badantay imtixaankeedu uu ka sii badan yahay saasoo eegana waxay dhamaan bahalkii dee u dhow iyo kama samri karnee maxaynu yaa allah wadaadadii baa loo tago le balqiil eega حون ده باربارا إلا قوي ما تشري قوي جوانا هيجي إلى هاي بكتجي قيل أجبال ده قيل كي أجنا أنقبنا لكن ينا عنم بيده قال أنت أنقبنا ما له هكذا بيانا عين بالك استعمال أما الشبكة هو دجان أما الجدد هو قضان ما أنت والله قبت بهالكي بنانك أو صابح يلا جو امتحاني أحد يوم علمه كدم بيسينه والله اللقاء والله عني macnaheedu markaa waxa weeyaan albaabka intay iska ilaaliyeen bay daaqada ka soo galeen daaqadun bay xaaraantii uga soo galeen albaabka tooskiina maalinkaas uu noqon lahaa maalmaha kale loo dhigto inta maalinka la qabtaana waa in xaaraantii daaqada looga soo galay waxay markaa noqotay inay xaaraantii xeeladaysteen oo xaaraantii bay xeelad iyo farsamo iyo qiilday faasida ayay ku cuneen وكا إلهي سبحانه وتعالى سورة الأعراف يوات كأخرية سينا صدح قولوا نوضيانو قولوا عنطي قولوا ديدي قاريني نقدايا إيش يدوني أنا كدعانا إلهي وحبرنا وقفصا ما يهطانا ننقو عنينه
quraanka ilaahay wuxuu ku tilmaamay qoladii cuntayna inuu halaagay oo duleeyay kuwii kala diidayna uu badbaadiyay kuwii aamusayna waa laga aamusay idan arintaasina waxay noqotay sida ilaahay u galay ummadii waqtiga joogay waxay u ahayd 10 ummadaha ka dambeeyana 10 bay u ahayd dadka ilaahay ka cabsanayaana wax badan bay ku faa'iideystaan oo xaraan kuma dhiradaan oo mawcidatan lil muttaqiin marka damiirkan fajacalnaaha magaalada waa loo celin karaa magaaladii waxa samaysay iyo dadkii sameeyay fajacalnaaha ay alqarya ama fajacalnaaha ficlada waaqicada dhacdadaas waxaan ka dhigay baa ilaahay uu nakaalan ay cibrah marka lima oo soo noqotayna lima bayna yadayha wama khalfaha maadu mararka qaar kood bay man noqotaa man bayna yadayha waman khalfaha dadkii waqtiga joogiya kuwa ka dibimanayayba daris bay u ahayd iyo dadka ilaahay ka cabsanayaan wadiya jeer markay meel wax ka dhacaan dadka waxay wax ku qaataan bay u noqotaa ma sidana ilaahay u galay talo maxay sameeyeen deynagana inaga ilaaliyo waa daris buu ilaahay uga jeedaa subxaanahu wa tacaala cuqubaadka ummadaha ku dhaca marka waxaa dadka looga ilaahay uga digaya subxaanahu wa tacaala inay iska ilaaliyaan xaaraanta iyo xalaashigeeda kiradatan khaasiin rasuulka waxa la weydiiyay sallallahu alayhi wasallam daayiradan imika jooga ma kuwii reer banu israa'iil la nasakhayba ma yabuu qola markuu ilaahay nasakho 3 cisho wax ka badan ma sii joogaan ee kuwani waa darsooda sidooda isaga abuurnaa marka daayeer dulaysan dabcan bani aadamkii oo daayeer noqday uu dulaysan yahay marka diin la'aanta iyo macsiyada duligaas looga dhacaa wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam alhamdulillah wa thana'u lillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram wa man tamassaka bi sunnatihi ila yawm الدين wa aya 70 min surati al-baqarah سورة البقرة آية التضباط قصة البقرة وين شيء إن شاء الله قصة سجود مستفادات كذا أما النتائج والفوائد والعبر وحياة لقى قادنا إيه ما تنقى إنه معناه نورت إن شاء الله قالوا مركا هدنا وحيد هذا مرصد حاط ادعوا لنا ربك ربي قال النوبري يبين لنا هالنوع ما هي وحيت إن البقرة jinsiga la yiraahdaa tashabaha calayna wuu iskaga kaaya eegaaday wa inna insha Allah anagu haduu ilaahay doono la muhtaduna waanu ku hanuuni doonaa bal waanu fali qaala marka nabi Muuse wuxuu innahu rabbi yaqulu wuxuu leeyahay innaha baqaratun wa naf lo'a la dhalulun mid layliyan maaha ama carbisan tuthiru al-ardh oo dhulka qoda ولا تسقي الحرث مد بيرت ورابسنا معها لا مسلمة ومد نبت قشوح عيب مله عيب مقتم مله لا شية فيها على مدنا مله لا بربرتها كبدنا برنا مله قالوا حين هذا الآن جيت بالحق إما كان حقي لتي سيدي سبنيدي أنو دونيني فالذبحوها بولهين way gowraceen wama kaadu may dhawaanin yafcaluuna inay sameeyaan wayd waqti xusna bi maxamed oo qataltum nafsan wayd wadkuru bay markaa noqonaysa mar hadii khitaab ka dambeeyo wadkuru waxa xustaan id qataltum nafsan markii abal nafti shay qof idin kamida fadaaratum fiha way isku riixriixdeen adaa dilay isku riixriixaasa ka dhacay والله مخرج إلهينا وحو سو ساري وابو سو ساري ما كنتم تكتمون بحيا قرين يسين إلهي بابنانك صادق فقلنا وحا نريبو إلهي اضربوه ببعضها قف كان ميت كأوحا كله فتانيف كبركي ما لا الله عيمي سوقو كله فت كذلك السيدة سيحيي الله إلهي وصلنا علينا يا الموتى ضدك الانتي ويريكم آياتي ayadihi sanawid tusinaya waa weyn awoodi samuujinaya la'allakum ta'qiluun waxa u dhowdeen inaa wax karataan wuxuu ilaahay idinka doonaya afulisaan aqli yeelataan iyo cilmi nimankii su'aashii adana way soo celiyeen oo waxay yiraahdeen hadda waxaanu doonaynaa dhinac kale ayaanu ka weydiinaynaa xagga isticmaalkeeda weeyay da'deedii iyo midabkeedii hadii la soo dhaafay neefkan isaga bal sida bani aadamku isticmaalo
xooli way yar kala duwan yihiin taasaan ka doonay in albaqara marka mufradka iyo jamca taada lagu kala saaraa erayga taada mar waxa loo isticmaalaa labka iyo dhadiga lagu kala saaraa marna mufradka iyo jamca mararka qaar koodna mubaalaqa iyo xeel dheeraan bay u timaada sida calaamatun oo kale marka halkani waa farqan bayna المفرد والجمع اسم جنسك marka in albaqara bayna kolkii hore baqaratun bayna hayne in albaqara wa shajaratun ya shajarun oo kale wixii la oran jiray loo baabay isaga kaayeegaadayo loodii baa kala garan laad dal insha Allah waanu sameyn insha Allah wada hadaan ay oran lahayn way ka sii adkaan lahayn imika inta wala waafaji la muhtadun uu sheego wuxuu sacani hadii aan idin sii sharxo ma aha tilmaantiisu laa daluulun tuhiiru alard walaa tasqi alxarth mid beerta qoda mid biyaha waraabiso oo markaa ama lasoo dhaansado ama beertaba biyaha ku shushubta ma aha musallamadu ceeb bay ka nabad gashay inta inoo muuqanaysa wax qarsoon mooyaane dusheedu ceeb male calaamadna male shiyadu waa calaamada erayada markaynu luqada isdul taagno waxay odayaashii hore odhan jireen habeen jiilaal waa 100 sac mahmaha soomaalida ka mid ahay habeenka jiilaalku waa midabo caawa waa kulayl habeen dambe waa qabow siigo kaad waxaas isugu dhex jiraan macnaha ma noqonayo meel loogu hagaago waxay uga jeedaan 100 sac oo isku midaba lama arko kani waa dhiin kanina waa madow kani waa cadaan kani barbar buu leeyahay marka waa xigmadda aayadana laga fahmayo loodu way midabo badanto barbarteedii calaamadaheeda badane tani waa basaafi barbartii badnayda looda lagu yaqaanay malaha waa mid iska saafi ah marka midab saafiya inta yeelataa ma badna ee barbarta ku badan hada xaqi la timbayna bal aflagaadada marka hore baadil buu waday anshuxumadooda iyo af adaygoodun bay kamid heer banu Israa'iil inaad u fiirsanaysa mooyaane mar walbana waxay soo celinayaan kolkay la hadlayaan nabiga hadal adaygooday kamid tahay udcu lana rabbaka rabbigaaga bay leeyahay iyaga miyaanu rabbi u ahayn haddaad tidhaahda imika rabbigaaga iyo rabbigeena maxaa u farqiya dee rabbigeena rabbi buu inoo wada yahay wey laakiin rabbaka markaad tidhaahda dee waad iska riixday rabbinimadiisii waad riixday waa nooc suul adaba wey maca allaahi wa maca rusul marka halkanna waxay yidhahdeen imikaad xaqii keentay way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluun marka haddii ay gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna oo daba taagani maxay tahay waa meel ay aad u sharxaan culimada luqada ee tafsiirka dadaad u akhrido mararka qaar koodna laga yaabo qofka inay kuba adkaato fahamkeedu kaadada xagga nafyiga iyo isbaatka iyo marka nafyi gala iyo markay muthbat tahay macnayaal badan bay bixisaa laakiin si aynu u soo dhaweeyno kuwa u dhow qaadano way gowraceen uma say dhawaanin inay sameeyaan miyana iska hor imanayn marka daahirka eegto neefkii way gowraceen baaba lagu leeyahay haddana waxa lagu leeyahay umay dhawaanin inay sameeyaan waxa laga fahmayaa ma ay sameeynin marka waa inuu lifaaq la socdaa tafsiirkeeda marka waxay leeyihiin wamaa kaad way gowraceen wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhawaanin inay u sameeyaan sidii loo faray oo sida loo faray maxay ahayd dee amarka inay sidiisii u qaataan u baheedo edab daradan iyo su-aalaan ka daayaan ama wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhawaanin inay falaan gowraceeda intaanay gowracin ka hor marka qabla daalika baa la raacinaya wamaa kaaduu yafcaluuna umay dhawaanin inay falaan qabla an yadbaxuuha intii aanay gowracin ka hor way sigteenba nimanku way sigteenoo intii aanay gowracin ka hor may u dhawaanin sida inay gowracaan sidaas weeye tanna waa qisada bilowgeeda iyo naf baa disheena markaasay isku riixriixdeen adaa dilay iyo adigaa dilay mu'aamaradahoodai ka mid ahayd iyo mushkiladahooda iyo isqabsigooda iyo khilaafka dhexdooda ilaahayna wixii la qariyay wuu soo saaray waxaa qariseen ilaahay baa soo saaray sooba saariyoon sici markii la yidhi gowraca ee ay gowraceen waxa la yidhi fadribuuhu ma idribuuhu bibacdiha neefka barh soo jara ku dhufta markaa barhkaasi halkeebuu ahaa qaar baa yidhaha dabaduu ahaa qolo kale carabkuu ahaa maxay naga khuseeya hadday meeshu muhiim tahay in la sheego naska cayimina ilaahay kama tageen subxaana wa tacaala laakiin arinta muhiimka ah ee weyne laga faa'iideysanaya waxa weeye kadalika yuxyi illaahu lmowta wayuriikum aayaati lacallakum tacqiluun aayadihiisii buu ilaahay idin tusinaya
iyo siduu dadka dhintay u soo nooleeyo caqligoo laga shaqaysiiyo oo cilmiga lagu fahmo oo lagu cibro qaato ilaahay laga tala qaataaba way natiijada la doonaya marka qisada cibar baa ku jira iyo casharo aynu ka faa'iideysanayno oo qaarkood fiqi yihiin iyadoo qiso khabar ay tahay ayaa haddana waxyaabo maaragtay masaa'il fiqiya culimadu ay kala baxeen waxa kow ka ah waxyaabaha aynu kala baxayno caqliga inaanay u habboonayn waxyiga inuu ka hor yimaado caqligu waa inuu ka dambeeyaa una adeegaa waxyiga qaadashadiisa saa daraaddeed ayaa qofka mu'minka ahi markuu amar ilaahay xaggiisa ka yimaado ogoli inbuu leeyahy wamaa kaana limuminin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri aniguna sidaasaan idhi hadduu ilaahay iyo rasuulku yidhi waa caqlaaniya waa arrimaha ummado badani ay ku halaagsameen weeye ilaahay iyo rasuulkaa yidhi ma ag iman karta anna waxaan idhi a'immadii waaweynaa mid waliba wuxuu leeyahay qowlkaygu hadduu khilaafo ka rasuulka halkaa iska dhiga qowlkayga waa tarbiyada fadliga ummaddani ay leedahay ayaynu arkaynaa reer banu israa'iil sidanuu inoogu sheegay suuradda aakhirkeedana wuxuu ammaanay ilaahay mu'miniintii آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته إلى آخر الآية وحكتر سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير إله يوم قال هو كان سنة إله قريبا هو كان سنة مركا يجو تباتي جنيه شافا شرقا ملأ إذن مركا ماشى كم وقنا يا وحوي وأتكانا يسائنا إسلا كان قادموي ومضى النوع عاصة هي إيرينكو ما أنت التعايش بين الأديان والمصاحبة بين الأديان بالله وضع السوق قلنا يا ديمها هي الدكود دين يهودي السنارة الدائرة تنحن بارسن عناتكن قفك مسلم كان سمعنا ووضعنا على الإسلام كان قاضي كراه يسقوا ما التناسلية كراعون بالتناسلية إمام أحمد رحمه الله مسألة الفقه وكلا صبح وحوي أن البقرة تذبح ولا تنحر وحجر النحر يذبحي fiqigeena marka la eego xoolaha qaar naxri baa lagu sameeyaa waa la dhuundhabaa dhuundhow baa la idhaahdaa waa keekaas waa geela xaggaa hoosaa laga dhuundhabaa sidaa looga taagaa dhag halkaasaa hunguriga laga jaraa dhiigguna halkaasuu sida ugu dhib yar ka bixi karaa lo-da iyo adhigana waa la gowraca ama waa la qowracaa qaaf iyo ga-kaa doonaysa ka dhow dadka labada waa ka maqalaaye waa xaggan hore ayaa laga jaraa marka lo-du nooca xaggan laga gowracayo maahayn xaggan laga gowracayo ayadda waa ka faa'iideynaa buuli inkastay qiso tahay imaamu maalikna waxa uu ka faa'iidaystay jawaasu bayci salam iibka la yidhaahdo amaahda wax lagu sii kala iibsada sifo wax lagu kala iibsada iyo tilmaamo heshiiska lagu qoraya inuu ansax yahay axaadiistu way sheegtay aayadaha daliilka waa buu ka mid yahay buu leeyahy oo sacan waa la sifeeyey dee markay qofka iibsanayaan ama u diranayaan sifooyinkaa loo sheegaya nootaayada lagu qoraya waa sacdaadiisu sidaa tahay midabkiisu sidaa yahay layligiisu sidaa yahay saasaa lagu helaya marka haddaad waxaaga saa u sifayso waad ku iibsan karta waxaynu ka arkaynaa musiibada uu leeyahy madax adaygu iyo inuu wax sii adkeeyo laa tasaluu can ashyaa ilaahayna ummaddan wuu uga digay inay had iyo jeer su-aalaha madax adayga ah soo celceliyaan xun bay sii adkaynaysa waxa ku filaa sac markii la yidhi ku yar iyo ku weyn iyo ku midable iyo ku midka u horeeyaa ku filaa shadaduu fashudida calayhim walaa yushaada diina axadun ilaa halaba diintu sideedunbaa ilaahay looga amar qaadanaya layskuma adkeeyo warwareegga waa laga ilaalinaya waxaynu ka faa'iidaysanay nusuusta daahirkun in la raacayo iyagu daahirkii may raacina way falsafadeeyeen marka waxaa yeel sidiisunbaa loo yeelaya daahirka lagama duwayo waxyaabaynu ka faa'iidaysanayno waxaa ka mid a amarku fawr buu keenaa waa masale usuuliya haddii wax lagu amro miyaad iska warwareegi kartaa mise waa inaad horey kaga tallaabsato waxaa yeel waxaa ka dhalanaya natiijadu ay tahay inaad hore ugu dhaqaaqdo sidaa daraaddeed baad ajri weyn yeelanaysaa haddaad horey ka fuliso nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey camalada maxaa ugu fadli badan muxuu yihi asalaatu liawali waqtiha amarka inaad xagga hore ka fuliso oo marka amarku uu taagan yahay aqiimu salaa waxay taagantahay marka waqtigu galo horey ka fuli xajkii inaad u degdegto cumradii cibaadooyinkii oo dhan mid waliba markuu kugu waajibo marka amarkii degdegaasaa ayaa ka soo baxaya qofkii u degdegayna waa maajuur
مسائل كفقه قال لك قادنا يا وحوي النسخ قبل الوقوع وحبال النسخ كراه انت أنا ولي دقن كلمة وده مركي الأمري انت ولي عيد دقن كلمة هدنا لبدلي وهدنا لبدلي صومها وسيدي صدقة دي ليلي النبي مركا لا كل ما يسان صدقة قديمة سورة المجادلة سيدا كحسن مركي دادكي كبغداي دي بسو تاغينا انت ألا فولين بابا الله نسخي بقى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة حقا ما واحد كسو أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات والله نسخي بقى marka naskhigu ahkaamtiisa waxa kamid ah iyadoo wali aanu la dhaqan galin la nasakhi karo waxa halkan laga faa'iideysanaya xirmaanu miirath al-maqtul ala al-qatil qofku kii uu dilay inaanu dhaxlayn sharcigeena waa sidaa halkaas ay ka soo bilaabantayo sharciga hore iyo keenu halka waa iskaga mid qofku haduu qof dilo khatabaha u dilo oo yaan dambiba ka raacin wala xiri albaabka haduu aabihi rasaas kaga qaraxdo dadka kaluun baa dhaxli laakiin isagu ma dhaxlayo walbaabka wala iska xiro qaar ducafa ah oo soo marmarsoonaya ama u soo dhukusaya ayaa dhici karta dilka qofkii uu dhaxlayo raagsanaya oranaya kana ma gorgorba cimri dheer ah muxuu hore kugu dhaaf waayo ka qadimaya kaga tufaya waa iska badan kara waxa dilka la yiraahdo xaq darrada ah inaanu qarsoomin sida qaalibka ma qarsooma dilka xaq darrada ah deeynaga ba aragnay qaar god loo qodo lagu malaasay Soomaaliya oo duqsiuna ag marmaray waaba inuu soo joognayba islaan la mooriyay islaantii la mooriyay baa loo yaqaan nag laga dhigay haddana la soo helay mid kale aan xusuusnahay oo isagana inta la jarjaray jawaan lagu xidho dabadna ceel dheer oo shan shuba lagu rido lagu qafilay oo la soo helay waqtigii salafka waxa dhacay nin baa gabadh buu dilay dadna waaba la waayayba shadii dambe ayaa muddo ka dambeysay oo laga samrayba ayaa aqalkiisa hortiisa waa kutubaha soo naqla fiqiga aqalkiisa hortiisa nin lagu dilay isagoo aqalka dhexdiisa neefs kaga qalanaya ayuu mididii oo dhig la banaanka oo la soo baxay deebilayskii baa qabtay ninkii midida dhiiga la watay wax kale lama arag bacid kale ma joogtan ka midida sita mooyaan waa calaamad weyn hadii maxkamadii lagu geeyo warwareegayna adigu si uu bay noqoto waa lagu xukumay ninkii markaa wuxuu wariyay waxaan idin sheegayaa nin wax dilay waana laakiin runtaan idin sheegay kan maan dilin habartii horaan dilay habartii aweydeen ilaahay baa soo qabtay taasan hadaa midii dilaysaan habartii hore la waayay dilabu kan laakiin raadiya cidii dishay dardaarankaas uu ninka tagay waana la dilay marka dilka waxa la ilaahay moodin inuu qarsoomayo baalun buu ka hilaac qisada waxa inoo si cad inoogu sheegaysa aakhiradiidka jawaab u taqris qisadu shanta qisa ilaahay uu soo nooleeyay adduunyada dad dhintay bay marka daliilu tahay ninkii markii lagu dhuftay wasladii intoo neefkii laga soo jaray baa lagu dhuftay kadibna uu hadlay shaqadiisii uu guto hebel baa dilay خلاص iska khuriye ama waa iska dhinto waxa halkan aynu ka faa'iideysanaynaa looda ama xoolahaba midba wixii loogu talagalay in loo daayo ku wanaagsan yahay awrta ama geela rar baa loogu talagalay loodana waxa loogu talagalay qodaalka ayaa loogu talagalay dawaata aynu aayada ka arkayno tuthiru al-ard wala tasqi al-harf wa dulaabki macnaha waa wadaantii u bajiidaysa lagu waraabinay sida daraadeed ayaa saxiix muslim waxa ku sugan xadiidkii abi hurayra warinayay nabigu calayhi salaatu wasalaam maalmaha kamid ah asxaabta u sheekeeyo wuxuu yiri ninba sac waday oo raray sacbu raray oo ka dhigtay siciba dirgan waay markaasuu la hadlay ninkii intuu ku soo jeestay wuxuu yiri warda sida la ima abuurin qodaal bay la abuuray rar la ima abuurin iska sii socdo marka asxaabtii baa yaabo waxay war masacba hadlay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri aniga iyo abubakar iyo umar waanu rumaysanahay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam marka laga waramayo qisada waxay ku soo arooriyaan fadliga abubakar iyo umar haddana sheekadii buu sii wado wuxuu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam nin baa ari la joogayo marka yey ama bahal baa soo weeraro neef buu qaatay ninkii baa ka daba carro neefkii ka soo riday yeygii baa hadlay wuxuu yiri
sideebaad yeeli doontaa yowmu sabc maalinka bahalka ee adhiga iyo bahalka aan cidiba u dhaxaynin maalinkaaba cidlaan ka heli markaasaa la is eegay kolkaasuu nebigu yihi anigii abubakar iyo cumar waa rumaysannahay idinku waxaad doonaysaa yeelo almuhim waxaynu uga jeednaa shay walba wixii loo abuuray waxaan haddii loo isticmaalo waa cadibaan qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu uhi uma intaa kadib qasad quluubukum qalbiyadiinni wuu engegay min bacdi daalik intaa waxaa samayseen kadib fahiya qalbiyadiinnu kalxijaarati waa dhagaxaantoo kale reer banu israa'iilow aw ashaddu qaswa bawaabay ka sii adayg badanta waina min alxijaarati dhagaxaantu inay dabacsan yihin baa la sheegaya ina min alxijaarati dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa dhagax yatafajaru minhu lanhaar webiyadu ay ka soo butaacayaan waina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mid ah lamaa dhagax yashaqaqu dildilaacaya fayakhruju minhu lmaa oo ay ka soo butaacayaan biyuhu waina minhaa dhagaxaantii waxaa ka mida lamaa dhagax yahbidu soo dhaadhacaya ama soo daadegaya buurta qabqab ka soo odhanaya min khashyat illaah cabsi ilaahay daraaddeed wama allaahu bigaafilin ilaahay ma moogo kama war la'a camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan goodi weyn baa dhaca iyo hanjabaad weyn reer banu israa'iil ilaahay baa inaga yaqaana subxaana wa tacaala waxyaabaha caanka ku yihiina sifaadkooda qur-aanku ku tilmaamay waxaa ka mid a qalbi engeg qalbiga oo gaadhay heer uu dhagaxba ka adag icjaaz markaa luqawiya baa ka muuqanayo siduu ilaahay u sii sharxay dhagaxiibuu markaa rabbi ammaanay noocyada dhagaxaanta mid ila biyo mid siduu jiricsanya webiyaal ka soo butaacaan iyo mid ila ka soo burqadaan iyo mid cabsida alla hayn waayo ka soo wilaanwilanaya ama ka soo dhaadhacaya buur weyn buuraha waaweyn markaad joogto waxaad arkaysaa dhagaxaan waaweyn oo casayaaloo soo daadegaya oo wax soo riday aanad garanayn waa cabsi alleh ilaahay baa subxaana wa tacaala quluubta yaqaanee qalbigoodii sidaas ku sharxay hanjabaadda wuu raaciyeyoo wuxuu yidhi reer banu israa'iila waxaad samaynaysaan ilaahay kama warla haddii lagu idhaahdo cid awoodli ay ku tidhaahdo waxaad falaysa waan ogahay maxaad u qaadanaysa waa hanjabaad halkii u cuslayd weeye waxaan kaa yeelaad arki doontaa weeye ayaa daba taagan waxay leeyihiin aayaadka waxaa ku sugan icjaaz cilmiya baa ku sugan waayo berigaa hore waxaa loogu haystay waxa ugu adag inuu dhagax yahay ama dhagaxuba uu yahay marka meel adag iyo guryo iyo wax la isticmaalayo kay habboonta in la isticmaalo laakiin qur-aanku wuxuu sii caddeeyey dhagaxu inuu noqon karo mid jilicsan qolada markaas joolojiyada baaritaanka dhulka iyo xajaarta iyo dhagaxaanta sameeyaana sidaasun bay akhiiran arkeen qur-aanku uu sii sheegayo dee dhagaxiya waxaynu aragnay dhooba ah soo maa dhagaxa marka daqdiga lagu badiyo iyo culayska iyo heerkulka iyo xaraaradda muxuu noqdaa waxay idhahdaan axjaartu way kala duwanoo dhagaxaantan sadxiga ee dhulka xaggiisa sare saaran boqolkiiba 1 ilaa 2 biyo ah marka mukawanaadkiisa iyo waxyaabuhu ka kooban yahay la eego dhagaxba dhagaxu ka sii hooseeyana uu ka biyo badan yahay axjaartuna biyaha waxay ka qaadataa beedan roobka biyaha roobka sida ciid u qaadato dhagaxaantuna way u qaataan meeliba meesha ay ka sii hooseysana way ka biyo badan yihiin dhagaxaanteedu waliba siyaabaha albaabadooda ay ku furmaana sida ilaahay uu sheegay subxaana wa tacaala waxa ka mid ah burkaanayaasha bahalahan qaraxa Soomaaliya laynaa fulkaanaha waa albaabada iyo indhaha biyo ay ka soo burqanayaan waxyaabaha ilaahay uu ku furo ayay ka mid yihiin lidalik bad mararka qaar kood arkaysa meel qaraxday oo dabkiina xagan ka butaacaya biyina xagan ka butaacaya oo labadiiba ilaahay isdhax wada subxaana wa tacaala marka haddaba heer kulkii loo badiyo dhagaxa isaga ah ee biyihii ay ka dhammaadaan boodhar buu noqonaya ama budo sawirka maxaa laga sameeyaa dee kulaylkan warshadan la gelinaya biyihii unbay ka saaraysa dabeedna buday noqonaysa daqiiqdaas oo kale adigaa ciidda ku walaaqaya iyo malqacadda goordhow markaad doonaysa inaad dhagax karaysana biyihii unbaad ku shubaysa dabeedna dhagax buu iska noqonaya idan markaa inuu noqon karo dhagaxii wax jilicsan sida aynu hadda ku arkayna ayuu qur-aanku sii sheegay insaanku tijaabada uu gaaray iyo awoodaha ilaahay uu siiyey kadibna jilaacaasaynu ku aragnay idan markaa qalbigii bani aadamku waxa uu noqday dhagaxa jilcay mid isagu kaba si adagba law anzalna hada alqur'ana ala jabal la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati allah absida ilaahi daraadeed ayay dhagaxaantu la dildilaacaan
laakiin bani aadamka qalbigiisa waa kaa waliba qalbiga yahuuda waxa markaa natiijada ay noqotay ha aaminin naxariisna ha ka sugin qofka ilaahay ama ummaddu kaga warramay qalbigoodu inuu halkaa gaarsiisan yahay ha ku talagalin inay kuu naxariistaan ama horumarku gaarsiiyaan ama halaag kaa badbaadiyaan iyo tarta وهذا ما أقوله وأستغفر الله والله سبحانه وتعالى أعلم